Taliyaha ciidanka xoogga dalka oo xilka laga qaadayo sargaalkee lagu bedelayaa madaxweynaha jamhuuriyadda oo qorsheynaya in wasaaradda gaashaandhigga iyo taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo hal shaqsi u magacaabo Generaal Odowa oo shuruudo horle ku xiray haddii uu qabanayo xilkaasi madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Qodobada oo idil ayaan muuqaalkani ku qaadaa dhigi doonaa daawadayaal, laakiin intaan u guda galin muuqaalka like saara, sii share gareeya oo la wadaaga saaxiibadiin, boggaana follow dhaha si aad kaga mid noqotaan saaxiibada ku xiran mahadsanidin. Aynu ku bilownay xogo kala duwan oo aynu helayno ayaa waxa ay sheegayaan in madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya uu qorsheynayo inuu xilka ka qaado taliyaha ciidanka xoogga dalka. Sidoo kale xogtani ayaa waxa ay sheegaysaa in sargaalka loo badinayo in loo magacaabi doono taliyaha ciidanka xoogga dalka lagu magacaabo Generaal Garabey oo hadda madaxweynaha jamhuuriyadda iyo wasiirka gaashaandhigga kula sugan dalka Turkiga. Wararka ayaana sheegaya in sargaalkaasi loo qorsheeyay in xilka looga qaado taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed isla markaana loo magacaabo sargaalkan ayaa xogaha waxa ay tilmaamayaan inuu ka soo jeedo beesha Abgaal. Generaal Garabey waa sargaal caan ah waxa uuna aad ugu dhow yahay Sheekh Shariif Sheekh Axmed, madaxweynihii hore ee dowladii ku meel gaarka ahayd oo xilligii uu madaxweynaha ahaa aad ula soo shaqeeyay. Ninkani ayaa la sheegay inuu ku fiican yahay hogaaminta dagaalka. Mar ayuu caloosha ka dhaawacmay isagoo ku jira dagaal kooxda Al-Shabaab iyo dowladda federaalk ee Soomaaliya ku dhex maray jiidaha dagaalka. Khamiista soo socota ayaa wararku ay sheegayaan in shirka golaha wasiirada looga dhawaaqi doono magacaabidda sargaalkani loo wado taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, waxaana dhici karta in dib ay u dhacdo amba dib u dhac uu ku yimaado qorshahani. Taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Generaal Ibraahim Sheekh Muxudiin ayaa dhowaan ka hor yimid hoggaano cusub oo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya uu ku soo kordhiyay taliska ciidanka xoogga dalka. Arrintaas ayaa tikreetada madaxweynaha lagu sheegay inay ku timid soo jeedinta wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalk ee Soomaaliya. Aynu ogaanay waxa ay xogtani ay sidoo kale sheegaysaa in madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya iyo wasiirkiisa gaashaandhigga iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka ay u soo bandhigeen inuu shaaciyo warqadii lagu magacaabay hoggaanada cusub oo ahaa ilaa 4 sargaal, balse taliyaha ayaa diiday sida xoguhu ay tilmaamayaan, waxayna u xayirneed habeeno fara badan. Goor dambe ayaase waxaa baahiyay wasiirka gaashaandhigga oo adeegsanaya warbaahinta dowladda federaalk ee Soomaaliya. Wasiirka gaashaandhigga iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka ayaa aad isku khilaafsan, iyagoo dhowr jeer isku qabtay shaqada ciidanka. Madaxweynaha ayaa ka gaabiyay in khilaafka labadan nin ee soo noqnoqday caqabadana ku noqday dagaalka kooxda Al-Shabaab uu xal u helo, waxaana haatan wararku ay sheegayaan in laga takhalusayo taliyaha ciidanka xoogga dalka si arrinta ay meesha kaga baxdo khilaafaadka soo laalaabtay ee u dhexeeya wasiirka gaashaandhigga iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka. Xogta aan helnay ayaa sidoo kale waxa intaasi ay ku sii daraysaa in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu xilka taliyaha ciidanka xoogga dalka mar kale u soo bandhigay taliyihii ka horeeyay Ibraahim Sheekh Muxudiin oo ahaa Generaal Odowa Yuusuf Raage, balse xubnaha xogtani inala wadaagay ayaa waxa ay sheegeen in Odowa oo magacaabistaasi uu ku xiray shuruudo uu hordhigay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Sidoo kale waxaa jirta xog sheegaysa in Xasan Sheekh Maxamuud uu ka fikirayo in wasiirka gaashaandhigga iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka uu hal qof u magacaabo si looga baaqsado khilaafaad joogto ah ee wasaaradda difaaca qaranka iyo taliska ciidanka xoogga dalka naafeeyay muddooyinkii ugu dambeeyay, kuwaas oo ku soo laalaabtay gudaha wasaaradda iyo sidoo kale ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, taa oo loo sababeeyay in ciidamo fara badan oo jiidaha dagaalka ka soo baxay ay sabab u ahaayeen wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalk ee Soomaaliya iyo sidoo kale taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. Daawaday haddii aad soo gaartay dhamaadka muuqaalka like saar, sii share gareey oo la wadaag saaxiibada.